السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة تحنيهنا برشادة ويندوز 10 عشر كان كيكوري وحن كسر قاعدنا سيدا start menu لو بدله أما لو استعماله قيبه سكر دون كليب كان وحن قاعدنا إن مانتا سيدا لو بدله أما customization لو قسميه قاب كاربتيد أدوغدي قدي task بارك iyo waxa loo isticmaalo taskbarku sida aragtaan wuxuu ka kooban yahay search box ilaa iyo action center waa qaybtaas hoose waxa ugu horeeyaad sameyn kadib maadaama taskbarku uu qaybta hoose oo screenka uu joogo waxaad sameyn kadhaa korbaad geyn kadhaa geeska midigta geyn kadhaa geeska bidixda geyn kadhaa ama sida hadda uu yahay hoos qaabka rabtid marka taasa u sameeysid waxa sameeynaa mouse-ka ayaa dhanka midigta ka gujinay ama right click ayaad ku sameeynaysaa waxaad oranaysaa waxaad hubinaysaa inuusan lock ahayn haduusan lock ahayn markaas waxaad sameeynaysaa waad gujinaysaa meel banaan oo taskbar-ka ah ayaad gujinaysaa waad haynaysaa mouse-ka kor baad u qaadaysaa markaas ilaa uu ka tago meesha kore qaybta kore haddaad rabtid inaad gees ka dhigtid sidoo kale waad gujinaysaa waad soo qaadaysaa geeska rabtida geynay ama midigta ama bidixda ama midigta ama kor ama hoos sidaa rabtid ayaad ka dhigi kadhaa oo meesha rabtid ayaa geyn kadhaa haddaad qaybahiisa uu ka kooban yahay markaad mouse-ka dhanka midigta ka gujisid meel sidebar-ka ka mida oo bannaan waxaa kuu soo baxaya waxyaalaha kala duwan oo aad kasoo saari karid taskbar-ka tan ugu horeysa waa toolbar oo ka kooban address oo meelahaad website-yada ku qori kadida links desktop haddaan kulligood sheegarayo address wuxuu si fudud uga isticmaali karaa sida website-yada oo kale oo address barki caadiga ah browserka waxaan kaloo sameyn karaa links ayaan ka soo saari karaa oo address barka geeskiisa oo linkskayga halkaas waa soo gelin karaa waxaan kaloo ka soo saari karaa desktop oo waxyaalihii desktopka ii saarnaa iyo weliba qaybo kale ayay ii soo gelinaya meesha haddaan desktopka soo saaro taskbar-ka arrowga ama se fallaartaas geeska desktopka markaan gujiyo waxaa ii soo baxaysa waxyaalaha aan ka tegi karo desktopka oo taskbar-ka markaan rabin sidaa ujeedaanba calaamad oo check mark ayaa saaran waxyaalaha hadda saaran taskbar-ka markaan ka qaado way ka baxayaan marka kulli waan ka saaray hadda saddexdii qaybood oo aan cusbaan soo geliyay oo toolbar-ka joogay search box-ka oo ah meeshaan oo Windows-ka wax laga baaro isagana sidoo kale waan soo saari karaa waxaan oran karaa show the search box icon ahaan aan usoo saari karaa oo waxaan ka dhigi karaa isagoo icon camala markii la gujiyo uu search-ka soo baxayo sidoo kale waxaan ka dhigi karaa waa qarin karaa isaga dhan waxaan oran karaa haba soo saarin oo search box la-aan taskbar-ka waan ka dhigi karaa markaan kasoo tagno search box-ka cortana button-ka oo kana oo cortana waxa weeye codka aad u diraysid ama wax ku baaraysid adigoo codkaaga wax ku baaraya ayay ku fududeynaysaa isagana sidoo kale waan soo saari karaa waana qarin karaa haddaan check mark saaro wuu soo baxayaa haddii aan ka qaadana wuu baxayaa oo ka baxayaa taskbar-ka sidaas oo kale view button-ka oo taskbar-ka saaran oo kana oo waxyaalaha application-ka furan aan ka arki karo view button waxaa loo isticmaalaa haddaan dhowr application ii furan yihiin
baan waxaan samayn karaa preview aan ku samayn karaa. haddaan gujiyo sidaas ayay usoo baxayaan. markaas kaan rabo ayaan si buuxda u furan karaa. so view buttonka waxyaalahaas u qabtaa. applicationkaas ayuu si fudud inaad wixii furan aad u aragtid uu ku sahlayaa. marka waxaan idhi view kortaana waan ka qaadi karaa. view buttonka haddaan ka qaado waxa uu nii soo haray applicationada oo ku dhagan oo ku pinkraysan meeshaas ayaa hadda ii soo haray. markaan kasoo tagno view button waxaan soo saari karaa people icon oo ah icon oo aad contactigaaga aad soo gelin kadib. waxaad kaloo soo saari karaa show windows ink workspace oo ah applicationada aad sketchka ku samayn kadid windowska ayaad soo gelin karaa sida whiteboard, full screen, snip oo kale. waxyaalahaas oo kale ayay ka kooban tahay qaybtaasna. keyboardka on screenka sidoo kale waad soo saari karaa haddaad rabtid. qaybahan cascade waa applicationka furan sidaad rabtid oo applicationka furan siduu windows uga soo baxo. marka wax la xiriira taskbar ma ahan. haddaan intaa ka gudubno haddii aan tagno taskbar settings. taskbar settings waxaan ka samayn karnaa waxaan oran karnaa lockta waa loo garayn karnaa taskbarka oo si aan markay caruurta computer ku ciyaarayaan oo kale ayaan taskbarkaaga u badbedelin ama wax u kharibin ama meel kale u geyn. isaga dhan looga ka dhigi karaa. waxaad samayn kartaa automatically hide the taskbar in the desktop mode. marka computerkaaga uu desktop mode yahay waad qarin karaa taskbarka oo wuxuu soo baxayaa marka aad mouseka dul marisid bes. inta kale uu qarsoonaanaya. marka computerka waa isticmaali karaa isagoo aan taskbar lahayn ilaa aad dul marisid mouseka. markaas kabacdi ayuu soo baxayaa. sidoo kale waxaad samayn karaa markuu tablet mode yahay computerka na taskbarka waad qarin karaa. desktop mode hadda waa noocaan isticmaalayo. tablet modena waxa weeye waa markaa qaabka tabletka aad computerka dhigtid. taasna waad samayn karaa. waxaad kaloo samayn karaa iconadan ayaad yaryarayn karaa. waxaad oran karaa use small taskbar buttons. marka iconadii halkaan saarnaa waxay noqonayaan wax yaryar. waxaan ilaaway search boxka inaan soo saaro. markaan small icon iska dhigo taskbarka sida halkaa ka muuqata search boxkii button ayuu noqonayaa oo meeshuu awal text boxka ka ahaa weyn oo wax ku qori karo hadda wuxuu noqday button uun aan gujin karo. markaan iconada sidoodii hore ku celiyo markaas search boxkii waan soo saari karaa. markaan kasoo tagno taas buttonka ku xiga wuxuu leeyahay use speak to preview the desktop. haddaan on ka dhigo dhanka midig ee hoose ayuu wuxuu siinayaa meel aan haddii aan kiligareeyo ama mouseskaba aan dul mariyo uu iga tusayo desktopka. oo micnaheeda waxa weeye waa uun jeedaalin desktopka aad fiirinaysid. markaad mouseka saas u hovergaraysid oo qaybta midigta ugu hooseysa aad hover ku samaysid mouseka ayuu desktopka tusayaa hadduu buttonkaas on yahay. hadduu off yahana kuma siinayo awoodda ma jidho. kan ku xiga wuxuu leeyahay replace the command prompt with Windows PowerShell. on hadduu yahay haddaan right click start menu ku sameeyo waxaan geli karaa command prompt oo ah command lineka computerka windowska weligiis uu ku imaan jiray oo caadiga ahaa. laakiin haddaan on ka dhigo oo replace command prompt with Windows PowerShell aan on ka dhigo haddana right click aan ku sameeyo meeshii command promptka ahaa wuxuu isu bedelayaa PowerShell. taasina taasay samaysaa show
badges on the taskbar button means haddii icon-nadan wax cusub oo badge ama message ay jiraan wuu kuu soo saarayaa oo hadduu message cusub soo dhaco kale wuxuu sameynayaa badge yar oo ku tusaya in uu message joogo taas haddaan ka gudubno taskbar location sidaan haddayo buttonka u qaadna kor iyo hoos midig iyo left midig iyo bidix waxaad isticmaali kartaa taskbar location on screen kan hadda buttonkuu joogaa waxaan ka dhigi karaa bidixda waxaan ka dhigi karaa kor waxaan kaloo ka dhigi karaa bidixda waxaan ka wadaa midigtu ahaa kana bidixda so qaybtii aan rabo ayaan ka dhigi karaa meesha sidekaan rabo ama meeshaan rabo inuu taskbarku screenka ka saarnaado ayaan ka dhigi karaa meeshaan odhanaysa combine the taskbar buttons micnaheeda waxa weeye haddii aan ka dhigo full taskbar aan ka dhigo when the taskbar is full mar walbaan application furo applicationka labelkiisuu soo saaraya ilaa uu screenka buuxsamo marka taasna mar walba kolley waxay ku habboontahay in siduu yahay loo dhaafo qaybtan hadda awood umaliina ku badbedelo waxay awood u yeelanaynaa markii computerka uu ku xiran yahay laba monitor ama laba screen ay ku xiran yihiin oo wax la xiriira computerka oo labada screen leh qaabka taskbarkiisa rabtid inaa usoo saadid ka dhigi qaybahaas details leh ayaan clip dambe uga soo saaraynaa qaybahan hoose oo taskbarka ma sida multi display oo kale iyo qaybtan oo people ah marka haddaan halkaa ka gudubno oo taskbar settings kaan ilkaa uga gudubno markaan right click ku sameeyo waxaad also awood u leedahay taskbarka inaad ka furtid task managerka oo iyana ah qayb computerka waxyaalo badan oo ku saabsan aad ka controli kadid ama applicationada aad ka xiri kadid ama program aan response sameynin aad ka bixin kadid ama se waxyaalaha markuu computerka shidmo isla markiiba istaara aad ka joojin kadid ama ka controli kadid taasna clip kale ayaan uga hadli doonaa insha allah marka clipkan oo taskbarka intaasaan ku ekeynaynaa la soco clipka ku xiga kan oo insha allah aan kaga hadli doono task managerka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.